horta gabadha Sarqaawi Lasiyay hadaad farxi lahayd dadku naxleed waa aniga waa Ifraax Maxamed Ifraax Xasaanid ma tani waa Ifraax Maxamed oo qadatay baraha bulshada kadib markii ay sawir la soo gashay ciyaaryahanka Sarqaawi ee u dheelaya xulka Galmudug horena loogu ballan qaaday in lagu dari doono gabar oo xildhibaanad canab ee ka ballan qaaday taa dhigeeda ayaa dadweynaha waxa ay baraha bulshada qabatiyeen sawirka Ifraax iyo Sarqaawi oo isla sawiran kuna sheegeen gabadhii laga ballan qaaday inay Ayadoo tahay haddaba Ifraax ayaa faahfaahinaysa oo muuqaalkan kaga hadli doonto ayaan idinku soo gudbin doonaa ee daawasho wanaagsan arooska ka soo qayb gali doono wiilka sorto waxyaalo badan oo jirtay oo taageerayay oo maaragtay juuda u bixinay markuu ciyaaray in ciyaarta oo kasto oo isku jir aan ka maqnaanaynin waxa kale ah inuu maaragtay kulanku soo xaadiray ama meesha joogay taageero weyn inaa u ahay haddana waa isku yandarteen inta isku yandaray hadalka iyo hadal haynta sawirka ayaa qabsaday qaybaha kala duwan ee baraha bulshada sida barta lagu magacaabo aalada lagu magacaabo Facebook oo si weyn ay Soomaalida u isticmaasho ayaa sheegay inay tahay gabadhii laga badan qaaday horaantii kadib markii xildhibaanad canab oo ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya ay tiri waxaan siin doonaa gabar Sarqaawi xilli ballan qaadyadu ay aad u soo tarayeen ayaa mar qura markay sawir la soo gashay baraha bulshada waa gabi ahaanteed waxa qabsaday Sarqaawi gabadhan oo la sheegay inay tahay tii laga ballan qaaday run ahaantii Soomaalida oo ah waxyaabaha aan hubsiina la'aanta lahayn si ula kaca qaarkoodna u sameeyo oo aan ka fiirsasho lahayn baraha bulshada qaarkood ugu faafiyay ayaa gabadhan waxa ay ka faafisay arintaasi ay ka hadashay waxa ay tii kaliya waxaan ahaa taageero weyn idinka ayaan iska qabatiyay oo isku guuriyay Soomaaliyeed aniga ninkan waa walaalkay aad ayaan u taageerayay sawirkan sidaasi ayaan ula soo galay waxyaalo la mid ay ka jeedisay muuqaal ay soo duubtay kuna tilmaantay Soomaalida qaarkeed inay aad u la yaabtay sida ay wax u fasireen waxay tiri kama xumi hadii dhacdo xataa tiri aad ayaan u la yaabay baraha bulshada hadba isbuucyada ama bilooyinka ama maalmaha qaar waxa qabsada ciwaanna iyo sawirro dadka ay ka sameeyeen qaarkood oo ay ku sheegaan xaalado kala duwan waqtigaasi ay ka mid yihiin dadka qaar ku soo caan baxay oo magacba ka sameeyay sida in la buunbuniyo waxyaala ayagu aysan ahayn laga sheego oo kaleeto barnaamijkaasi ay aad uga hadashay dadkuna waxa ay ku tilmaantay taageerayaal oo kaliya inay qaarkeed aad iyo aad u soo dhaweynayso ay si taageerayso waxa kaloo ilaa haatan ka hadlin dhagiisa ciyaartooyga Sarqaawi arintaasi waa aad ay ugu aamusay janalkii soo gudbinay barnaamijkaasi waa janalkii lagu magacaabo Daawo Media oo hadda jeer soo gudbiyay barnaamijyooyinka arrimaha bulshada ku saabsan oo aad inagu barateen halkan idinku soo gudbin aad ay u mahadsantiin